sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay aana qabiil nin ayaa beriyaha ka mid ah socdaalay waxa uuna u socday meel jirta 2 maalin socdo ay deganaayeen qoysas ay xigto dhow ahaayeen muddo markii uu socday ayaa waxa ka hor yimid 3 nin kolkaas la iswaraystay 3 nin ka mid ah oo ahaa mid aad u xoog weyn ayaa waxa uu ogaaday in ninka reerka uu ka soo jeedo iyo isaga reerkiisu ay col yihiin oo dad kala dileen kadib ninkii weynaa waxa uu go'aan ku goostay inuu ninka u dilo aano labadii nin oo kalena iyagu waxba arinta way ka qaban waayeen oo iyakaaba ninkii weynaa ka cabsaday ninkii roonaa labadii soo hadhay arrinkii waa uu ka aamusay oo afkiisuuba ka gaabsaday kii yaraa ayaa geesinimo muujiyey isagoo ka soo horjeestay go'aanka in ninka la dilo laakiin dadaal badan uu bixiyey waa uu ku guul daraystay inuu joojiyo in ninka la dilo